arday qoray musxafka qur-aanka kariimka, bartay xifdinta qur-aanka kariimka, bartay tafsiirka qur-aanka kariimka, bartay tajwiidka qur-aanka kariimka, bartay arqaamta qur-aanka kariimka. runtii cilmiga qur-aanka in badan isagoo yar ilaahay u fududeeyey inuu barto. waa nicmo rabbi lagu mahadnaqo. macalinkii baray iyo waalidkii ku tarbiyadeeyey ee ku dhiirigeliyay inay qur-aanka bartaan ayaa sidoo kale barnaamijka qaybiga la noqon doona. aan ugu horreyntii ku soo dhoweeyo barnaamijka maxamed cabdiraxmaan siciid oo garabkayga midig fadhiya. kusoo dhawo cabdiraxmaan. waan ku dhowahay axmed ducaysane iyo tv-ga saab t v mahadsantiin. runtii waxaa noo sharafay inaan maanta kugu soo booqanay madarasadan oo aad qur-aanka ka xifdiday, tafsiirka ku dhigatay, cilmiga kale qur-aanka ku saabsan aad ku baratay. goorma ayaad bilowday maxamed ugu horreyntii xifdinta qur-aanka kariimka? alxamdulilah waxaan bilaabay barashada qur-aanka kariimka anigoo ah 6 jir ilaa 7 jir qiyaastii meelahaas. waxaan dhameeyey anigoo ah 11 jir ah. imikoo alxamdulilah aan xifdisanhayna 14 jir baan ahay. xaggaad ku dhalatay? imsidii baad dhalatay? bal dadkan ku daawanaya ee daafaha dunida kala jooga u sheeg. waxaan ku dhashay magaalada nairobi sanadku markuu ahaa 2006dii dabayaaqadiisa waan dhashay. waa tahay nairobi baad isla markii markaad burco timi qur-aankaad bilowday inaad? isla markiiba ma bilaabin, laakiin muddo kadib baan bilaabay. waan yaraa markaan imi burco, aad baan u yaraa, marka maan bilaabin ilaa 6 jir 7 jir markaan ahaa meelahaas ayaan qur-aanka bilaabay. madarasadan aan joogno maxaad ka barataa? bal waxaad ka barato madarasado hore haddaad dhigatay, waxay madarasada horedii madarasadani ku kala duwan yihiin, bal noo sheeg. horta madrasado hore badan waan soo maray, hargeysa iyo burcaba. madrasadan waxay kaga duwan tahay madrasadaha kale. nidaam baa yaallo wax lagu barto barashada qur-aanka iyo xifdigiisaba. waxaan madrasadan ka bartaa imka qur-aanka xifdigiisa iyo tafsiirka qur-aanka iyo tasxiixiisa iyo kutubta tajwiidka sida muqadimatu aljazariya, manduumatu tuxfati alatfaal iyo alqowl almaaluuf fi sifaat alxuruuf iyo kutub kale. insha allah ramadaanta dabadeedna waxaan rajeynayaa inaan qiraa'ad ka bilaabo in adduunya la gaarsiiyo insha allah. waxaan doonayaa daawadayaasha ina daawanaya inaynu ku bilowno qaybo ka mida qur-aanka inaan ku weydiiyo. markaa qur-aanka waad i akhriyi doontaa. sida igu maqaalada waxaa taqaana xifdintii qur-aanka inaad akhrido, waxaa taqaana tafsiirkii, waxaa taqaana tajwiidkii, arqaamtii, mamakiibaa suuraddu mamadaniba safxadda xaggay kaga taallaa. marka inagoo ka dhigan doona 2 barnaamij oo kala go-an si aynu waqtiga daawadayaasha waqti wacan u siino, ayaynu ka dhigan doonaa 2 barnaamij kala duwan. laakiin maanta waxaynu ku eekaan doonaa xifdinta tafsiirka ayaynu ku eegaan doonaa insha allahu tacaala. markaana waxaan ku weydiin doonaa safxadda adna waad akhriyi doontaa. diyaar ma u tahay? diyaar baan insha allah. daawadayaal waxaan gacanteeda ku hayaa musxafkii qur-aanka kariimka ayaan gacanteeda ku hayaa. waxaa kale berber yaala kitaab uu maxamed qoray, musxafka oo aan iraahe uu qoray maxamed oo kaasa. laakiin maanta waqtigoo kooban awgii kitaabkaas buu qoray, musxafka qur-aanka kariimka uu qoray maxamed, gacantiisa ku qoray, rabbi ha barakeeye. marka macluumaadka siduu u qoray, xilliguu bilaabay, intuu ku dhameeyey, sida uu qur-aanka aanu meelna u dhaafeen iyo ciddii ka caawisay hadday jirto, waxaasoo dhan barnaamijka dambeyn ku qaadan doonaa insha allah. runtii aad buu xiisa badan yahay, anigana waa waxay soo jiitay. waxaad akhridaa safxadda 27aad ee qur-aanka kariimka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. xasbuk maa sha allah tabaaraka allah ilaahay ku barakeeyey adeer. waxaan u baahanahay bal tafsiirka aayadahana aad akhriday inaad nala wadaagto si annagii daawadayaashuba aanu u fahanno aayadahan qur-aanka. daawadayaal adna waxaan la soo bixi doonaa musxafka maxamed baan la soo bixi doonaa uu qoray maxamed qoray ee qur-aanka kariimka. waanu wada soconaynaa tafsiirku inoo akhriyi doonaa insha allahu tacaala. inoo bila maxamed. ليس البر وناكم هان أن تولوا إن تجهدسان وجوهكم وجهدين قبل المشرق بري حقيسة يا والمغرب وقبل المغرب قلبي حقيسة إن تجهدسان ولكن هسيشا البر وناكو بر من بدوناكي ويان آمن الرمي بالله الرمي واليوم الآخر ما لنت القيام الرمي والملائكة ملائكة الرمي والكتاب كتاب الرمي والنبيين نبي ذورنا الرمي وواتى بحيي المال حولي سنبحيي على حبه حال جعله ذوي القربى كو قرابدي سانا أوسيي واليتامى قون تنسيي يا والمساكين كو مساكينتان يا وابن السبيل يا كسعود الكهبة يا والسائلين كو بريوتما يا وفي الرقاب وفي فك الرقاب يا لقمها حرين توذا وقام وقي الصلاة صلاة دنوقي واتى بحيي الزكاة نبحيي والموفون وهم كواسنا الموفون كو أوفي ويان بعهد بلكوذا إذا قرتي عاهدوا أي بلن قاضان والصابرين كوا كصبرا في البأساء حنون ذا في البأساء فقرك كصبرا يا والضراء حنون ذا مركي جران يا وحين البأس دقال كوا مركي كجران أولئك كواسي الذين كويويان صدقوا رنتشاقي وأولئك كواسي هم يقوم المتقون كوا لك بغاه يا أيها الذين آمنوا كوا لرمي كتب وأي فرض وحالقوا فرد عليكم كركينا القصاص والقفر ديالي في القتل أي بسبب القتل كوا لدلي أوجود الحر كحركة يقتل حلو دليا بالحر كحركة بلو دليا والعبد كادون كايا دون دلينا يقتل حلو دليا بالعبد أدون كايا لو دليا والأنثى تددقنا تقتل حلو دليا بالأنثى تددق فمن قفك عفيا لعافيه لو ساق من أخيه حق ولالك لقع فيه وحكدلي شيء لقع فيه فاتباع أي فعليه كالع في كركيسة كاوحى في كركيسة وحى اتباع راعس بالمعروف سوى نكسن وراعو سوى نكسن ديض وغاطه وأداء أي وعلى القاتل كوحدي لكركيسة نوحى أداء إنه وابا القذو إليه كيعفي بإحسان سوى نكسن ديض وسيو ذلك كاسي تخفيف وفضوين من ربكم حق ربكم كهاتي يا ورحمة الحديث فمن اعتداك حد قد به بعد ذلك انت ذل فله كوحوسا عذاب أليم وحنوتشيا. ما شاء الله ما شاء الله. إن daawadayaal inaguna mar walba aynu inaan ka aragno kelmadda ma sha Allah bayn oran doonaa ilaahay ha barakeeyo. waxaan jecelahay inaan maadaama waqtigu uu iskurayo gabagabadii aan barnaamijku ku sii dhawiya inaan weydiiyo safxad kale tilaawadeeda akhriskeeda iyo tafsiirkeeda insha Allah. محمد waxaad akhridaa 472 iyo akhri safxada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حسبك maxamedow aayaadkan aad akhriday bal inoo akhri tafsiirkooda insha allahu tacaala. waxaan jeclaan lahaa inaan aayaddan aayadda ka horeysa inaan ku soo xidho waayo macnahooda isku xidhan. acuudu billahi min ashaytaan alrajiim. man camila sayi'atan man qofka camila sameeya sayi'atan xumaan camal xun la yimaada falaa yujzaa lagu abaalmarin maayo ilaa midlaha camalkaasoo kale mooye. waman qofka camila sameeya saalixa camalan saalixa camal wanaagsan sameeya qofkaasoo min dakarin lab ah aw mawtha dhadig ah walxaalna sidaa sameeya huwa isagu mu'minun uu mida la rumeeye yahay fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay geli doonaan aljannata jannada yursaquun waa lagu arsaaqayaa fiiha jannada dhexdeeda bikayri xisaabin xisaab la-aan. wayaa qowmi qowmkayow maa maxay baa lii anigay sugan oo adcuukum aan idinku yeedhaya ila najaati badbaadada watadcuunanii idinkuna aad igu yeedhaysaan ila naari naarta oo sibad igu yeedhaysaan tadcuunanii waxaad igu yeedhaysaan liakfura si aan ugu gaaloobo billaahi alleh oo ushrikaan la wadaajiyo bihi alla aan la wadaajiyo maa laysa lii bihi cilmun waxaan cilmi aniga ugu sugnaan walxaal baad sidaa ugu yeedhaysaan ana aniguna adcuukum aan idinku yeedhayo ila alcasiizi allaha sharafta badan ee alkhafaari dembi dhaafida badan laa jarama waxaa hubaalah annamaa tadcuunanii waxaad iigu yeedhaysaan ilayhi ay ilaa cibaadatii cibaadadiisa laysa inaanu ahaan low isaga dacwatun cibaado xaqin anigu u ahaanin fi dunyaa dunyaya walaa fi laakhirati aakhiraba wa ana maradanaa noqodka iyaguna ila allahi alle xaggiisa inuu yahay wa ana almusrifiina ay walaa jarama waxaa hubaal ah ana almusrifiina kuwa xadgudbaa hum iyagu asxaabu nnaari naarta asxaabteeda inay yihiin. fasatadkuruuna waxaad xasuusan doontaan maa mid baad xasuusan doontaan aquulaan dikuu leeyahay lakum idinka waufawid waxaan u tiiriya amri arrinkayga oon u bandhigayaa ila allaahi alle ina allaha alle basiir allihii arkay weeyaan bilcibaad addoommadiisa fawaqaa wuxuu ka dheereeyey alleh hukaas allahu alleh sayi'aati maa makaruu waxay sameeyeen intiisii xumayd ama fawaqaa wuxuu ka dheereeyey hu isaga allahu alleh sayi'aati maa makaruu ay sayi'aati makrihim shirqoolkiisa intiisii xumayd waa laka dheereeyey shirqoolkooda ayuu ka dheereeyey alle waxaa hareereeyey biaali fircoon helkiisiina suu-ul cadaabka kiisa daran. maasha allah tabaarak allah. waxay la fadhiya waalidkii maxamed yare waalidkii bayna la fadhiya. waxaan weydiin doonaa bal sheekh cabdiraxmaan siciid oo ah maxamed yare aabihii oo maxamed kasii shisheeya oo dhanka midig kasii xiga. maxamed iyo waxa igu maqaalaa iyo aabihii oo ah cabdiraxmaan inay yihiin laba ninoo dhalinyaro oo haddana saaxiiba. bal maxamed oo ila fadhiya nasiibu helay maantana waxay la jooga aabihii bal isagana nasiib waxaan helay inaan ka waraysta saaxiibtinimada ka dhexaysa. sheekh cabdiraxmaan bal adiguna kusoo dhow saab t v iyo barnaamijka waadiga nolosha. bismi illaahi raxmaani raxiim. walaal aad baad u mahadsantihiin bahda saab t v aad bay u mahadsan yihiin. axmed xiis isaguna aad bu walaal aad mahadsan tahay. waan ku farxsanahay barnaamijka inaan kasoo qayb galo. walaalow masalada aad maqashay waa run weeyaan. maxamed bidaaya ilaa nihaaya bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa saaxiib baan ahayn. waxyaalaha saaxiibtinimadaas waxay keentay in uu saaxiib kale baanu samaysan oo anigu aan la saaxiibay xagga waxbarashada aan ku taakiidiyey inaan ku tarqiibiyo jeclaysiye qur-aanka kariimka inaan macalinka iyo aniga uu maxamed dhexdaayada ku jiray inaanu taladiisa wada maamulaynay oo wada hagaynay in aan lexjeclada diimeed aada yoolka ugu saaray inay waqti badan igu qaadatay inaan ku tambiihiyo inuu shareecada diinta barto inuu muftaaxi cilmiga yahay diintu tahay ama qur-aanku muftaaxi cilmiga yahay oo uu halkaa cilmigii kasii bilaabo
arrimaha noocaasa way jiraan saaxiibtinimo qaaliyana way naga dhaxaysaa waxaan ku dadaalaa daqiiqad kasta inaan la socdo baahidiisa iyo halka uu ka cabanayo iyo halka uu wax si waxa weeyaan ay u suuro gasho inuu helo garab aan u noqdo arrimahan isay ugu fudaadaan barashada qur-aanka iyo kutubtan iyo arrimahaas oo dhan isay ugu fudaadaan marka saaxiib baan nahay saaxiib kalaba male anigu awan saaxiib dadka anigu buu igala saaxiibiyeen khaasatan xagga dhalinyaro iyo saaxiibtinimo dhalinyaro ma laha dad uu meelaha kula mashquulo ma laha masalo kaloo tarbiyadina way jirtaayo adabani rabbi faxsana taadibi maxamed ninkan ilahay baa iska rabeeyey rabaayadiisii u rabaysnaa maalin siniina buu dhashay magaciisana maxamed baa la yidhahdaa tarbiyadii ilaahay uu siiyey baan anigu garab ku siiyey sidaasaan ku saaxiibnay oo way jirtaa masaladaas waqti xaadirkan imika oo la joogo way adagtahay in waalid iyo inankiisii ama caruurtiisi ay saaxiibaan sababo jira awgood miyaanay dhicin marna inuu maxamed kaa baxsado kubad soo ciyaaro ama wax kale ku soo mashquulo oo aada weydaa mise maxamed waa duruuta oo hawlihii aad ugu talagasho mu qabtaa xaqiiqatan masaladaasi waxaa la yidhahdo ciyaalnimada wuu ka soo booday ninkani isagoo yar buu tarbiyadan ilaahay si rabaaniya u siiyey markii dambana aniguna xaggan baan ilaahay iga fahansiiyey inaan ilmahayga khadkiisa anigu u jeexo macallinkii khadka jeexay waan isla helay nidaamkii o dhan halkasoo nooga suura galay ninkani ciyaar iyo waqti aan meelaha kusoo nasta iyo marka qaar waxaa dhacday dadka waalidka kale ee maxamed dhinacyada kale waalidka ugaa inay tale iisoo jeediyeen ay leeyihin ninkan ha jimicsado ha soo yar ciyaaro mararka qaar in la yidhi ninkani marna madrasaduu joogaa diin ubuu baranaya markuu guriga yimaadana qur-aan buu dhagaha kula jiraa ninkan arbay maskaxdiisa wax noqotaa arrimahaasoo dhan waan ka soo horjeestay waxaan ku ihi ma dhacayso waqtigaa ka badan baa dadku ku lumiyaa malayacni iyo facebook iyo wixii lamida iyo kubadya wixii lamida ninkani kubadaha iyo meelaha lagu ciyaaro iyo dhalinyarada iyo suxbada xataa madrasadiisa saaxiibkuma laha aan macalinkiisii aniga ahayn markaa taasi ma jirto oo nin jaanis meelaan ugu talagal meel ahaynna ma aado xillina darsiga iyo madrasadu ku jiraa gelinka dambana xifdigii iyo kutubtii loogu talagalay buu ku jiraa habeenkii 8:00 ayuu jadwalkiisa u qoray inuu seexdo guriga waxyaalaha carruurta guriga joogta xidhiir lama laha walaaladii xataa xidhiir lama leh hooyadii markaa waxay ka codsataa iyo waalidka kale inuu la yara sheekaysto oo la yara fadhiisto maxamed maxaa kaa siiya laakiin jaaniskaasoo dhan wuu diiday limaada asagu meel buu socdaa wuxuu ku xidhayay kutubtii culimmada salafkiibu aad u dhegeysaa taariikhdooda dadkii qiimaha badnaa iyo saxaabadii dadkii cilmiga u saaxiibka ahaa qisas badan aniga macallinkayga kawaad weeyaan runtii xaqiiqatan weliba inta waxaan raacaa anigu macallin niya oo aniga duruus badan ka qaata marka qaar aan maqanahay meelaha qaar aan safar yara aado waxaan u baahda sagan dib u soo weydiiyay masaa'ilaadka khaasatan quraanka tafsiirka ku saabsan masalada bal halkan noo waadixi imisa qowl bay ku timi masaa'ilaadka sagan dib u weydiina marka ninkaasi nin ilaahay rabeeyay way anigu si khaas ay ugu xidhan yahay iyo waalidkiisa kale dhinacyada kale dabcan marka waa ilaahay masalo u bixiyo oo ilaahay xagga ilaahay baan arrintaas ku timi tawfiiq ilaahay ما شاء الله إلهي أبركيه waxa kalan jeclayna ku weydiiyo way adag tahay ubadku markay yaryarihiin in wixii ay dareemayaan baahiya inay waalidka u sheegtaan iyagoo ka baqaya ama ka qajilaya ma dhacdaa maxamed inuu baahiyo uu dareemayo uu ka qariyo mise saaxiibtinimada ka dhabo isaguna ku sheega maya xaqiiqatan waxba igama qariyo way marka hore heshiis ku nahay aabbo waxaad u baahato dalabka baahidaadoo dhan ii sheeg waxyaalahan carruurta ama dhalinyarada u baahato sokorta baahidaa weligiiba muu soo bandhigin aabba dalxiis baan u baahnay aabba halka inaan soo warwareegaan u baahnay aabba maanta kubad baan u baahnay jaanisyadaas waa ka mamnuuc wuxuu u baahdaa waa kitaab uu soo jeclaystay kitaab uu doonayo in loo soo daabaco waxyaalo ku saabsan labiskiisa iyo waxyaalaha khaaska ah ee uu isticmaala madrasada masalada kale raacda waxa weeyaan edabtiisa ninkan ilaa maalinta wuxuu ku barbaaray khamiis gurigii suraawishan iyo maryaha noocaasa dadka ka xanaaqa wey sunnahan si rabbaaniya buu ilaahay ugu tarbiyadeeyey kabacdina ninkani waxaa la wuxuu baahilayay anigu buu isoo bandhigay aaba masalada noocaas maanta u baahanay mararka qaar aaba 2,000 oo bajaaj tan ku raaco isoo dir buu leeyahay soo garan waxaa kaloo aad uga mamnuuca waxyaalaha beenta la yidhaahdo weligii been sheegi maayo halkaad joogta haddaad tirahdo halku joogo kuu sheegaya beentana waa ka mamnuuc masaladaasi waxyaalihii u fududeeyey bay ka mid tahay inuu kutubtan u fududaato waqtiga macallinku xilligu jadwalka soo gal iyo xilligula ka bax ayuunbuu ku eegiyey anigu halka khadkaan u jeexo buu ku eegiyey wixii masalo markaa caqli aan ahayn caqligu diiday haddana soo bandhigo wuxuu yidhahdaa aabba halkaasi malaa suuragal maaha dabcan waan isla eegeegnaa haddii suuragal noqon weyda waan iska daynaa labadayduba markaa igama gabado run buu ii sheegaya xataa meesha uu yidhahdo suuragal maaha waan la qaadanaya waan la eegaya oo waajib kagama dhigayo markaa taladii baan wada leenahay wada qabsigii baan wada leenahay baahidii inaan maadaama anigu abi mas-uulahay inuu iisoo sheega baan wada leenahay waxyaalahaasoo dhan aad bay nooga dhexeeyaan aad baan isugu xidhanay saaxiibkii koowaad weeyaan insha allah maasha allah sheekh cabdiraxmaan waxaa tiri masaa-isha iyo cilmigu isagaa ii macalina runtii inaad masaa-ishiisii cilmigiisa aad qaadato kalsooni intee leegaad ku qabtaa inaan kaaga yaraa waayo dad badan baa waalidka waxay rumaysan yihiin
inay yidhaahaan war waxba mataqaanida naga joogo iyagoo wax u diray oo waxna ubadkii haddana ay barteen? alxamdulilah walaalow boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay. limaada waxaan ogahay masaladan inuu taxqiijiyey waqti badanna uu kaga baxay waqti badan xagga waayo wuxuu ku taxan yahay baan ogahay casharka uu akhriyay baan ogahay dhowaan mobile baan u iibiyey mobeelka mar tasjiil waxbuu ku duubaa qur-aankiibuu ku tijaabiya wuu duubaa marna maqaalada shareecada kutub macalinkiisa ayaa wuxuu ugu shubaa mararka qaar xifdiga qur-aanka culimada tajwiidka ugu shubaa caalamka wadamada asia oo kale waxaa ka dhaca nidaam noocan oo kale arqaamta la qaybo culimo badan oo qur-aanka aad ugu takharujtay talooyinka qur-aanka ku saabsan wuxuu aad ugu mashquulsan yahay masaladaas maadaamaan ogahay inuu wax badan culimada la faguray imika mobeelkiisa waxaa ku jira qisaskii saxaabada xayaatu saxaaba iyo saxaabadooda iyo suwar saxaaba kutubtan taarikhda saxaabada ka warrama iyo qisaskii taabiciinta iyo suwarkii taabiciinta iyo taarikhdoodii sheekh walba taarikhdiisa isagan weydiiya sheekha taarikhdiisu maxay ahayd zamanku dhashay goorma ahayd labadaa sheekh maxay kala duwaayeenayeen marka waxaan ku qanacsanahay boqolkiiba boqol su-aasha aan weydiiyo inuu sideeda iigu jawaabayo limaada waan ogahay inuu ku dadaalay xagga tafsiirka qur-aankana iyadu waaba lambar one masaa'ilaadka qaar shaki iga galo ishkaal iga galo waan weydiiya waxaan idhahdaa halka marka qaar anagoo safarada qaar diinta ku maqan waan soo weydiinay aniga iyo ragga axbaabta aan wada soconno ama jamacaadka waxaana waa bal sheekh masaladaas nooga soo jawaab marka mararka qaar raggaan saaxiibnahay waxay yidhahdaan combyuutarkaaga yaraa la hadal masaladaas haddaynu inoo bix weydo marka mararka qaar bay saa noogu matalaan alxamdulilah aad baan ugu faraxsannahay ninkaas odayga iyo maxamed yare oo sidii aan ugu tabcay isaguna midhihii iyo tamaraadkii ka soo baxeen waana ku kalsoonahay oo waan ka faa'iidaystay xaqiiqatan macalinkayga koowaad weeyaan waliba imka waxay qorshaysan wax badan oo cashar aan kasii dhigto waqti badan uu siiye maadaama inta hore isagu waqtiga xaggan ku mashquulsanaa inuu aniga ii gudbiyo marka dambe wixii uu soo bartay insha allah. ustaad halkan waxaa ila fadhiya aan maanta marti ku nahay madrasadda aad gacanta ku hayso waxaa ila jooga maxamed yare cabdiraxmaan siciid gacantaad ku haysaa muddada aad gacanta ku haysay bal habdhaqankiisa siduu wax u barto bal nooga waran. horta markii ugu horreysay lee keenay ardayga moxamed cabduraxmaan saciid waxay 2013 isagoo inta aad iyo aad uga yar sida uu kuu sheegay waalidkiisana waxa weeyaan waa arday aan soo koobi karinba qaab aan u cabiraa habdhaqankiisa. horta maxamed saan sheego qur-aanka waqtigiisa u siiyey siduu salaas wax u yimaado horta maalmaha caadiga 5 casho aan khamiis jimcada ahayn ilaa geenka hore salaas marka laga baxo yimaadaa markuu soo yar quraacdo ilaa 6 ilaa duurkii wuu la joogaa. labada cashe khamiis jimcadana khamiista isaga waan isku qoranayo meeshaan ku qoraacanaan ku qadeynaa mararka qaarkii jimcaha hataa ayadaan joogtahay laakiin mararka qaarkii jimcahana wuu la joogaa. intoo ii yimid waxaan helay anoo marka hore nashaadii fircoon isku tumeeyey laakiin markii aan arkay waqtigiisii qur-aanka wuu siiyey iyo siduu u qalbi furan yahay waxaad moodeysaa niyaddiisa waxa ku jira iyo qalbigiisa waxa ku jira inay ii muuqdaan baad moodeysaa. taa marka waxay keentay inaan waqtigay u faraqo waqtigaygaan siiyo. disaa arkaysaanoodi waxa weeyaan sodgejis qur-aankii waxa weeyaan si uu ka baxay 25 jis baa hal maalin ka baxay hal fadhi isagii arday kale alxamdulilah 30 jis bay maalin fasireen waan sharax ku jirnay laqabada kaliyahay oo salaas marka laga baxay bilaabeen way wadeen maalintii oo dhan quraacii qadada halkaan waan ku quraacan ku qadeynay intaana waa dul fadhiyay waxay dhameeyeen habeenkii 9kii barka markay tahay bayminal jinnati wan naas ay fasireen marka tarkiibka laqabada un baa ahayd oo sharax kuma jirin muhiimadana waxay ahayd bal in horta quraanka uu maskaxda ku soo ururo sida lafdigii baan soddonka uga dhageystay hal maalin in haddana macnihiina uu soo ururo. madrasadan aad gacanta ku haysaa maxaad oran kartaa madaarista kale way kaga duwan tahay? horta guud ahaan madaarista waa isku mid oo nidaamkooda inta badan waa wuu iska ag dhow yahay laakiin waxaan oran karayaa laba qaybood aan u qaybin karaa ardayda qur-aanka dhamaysay iyo ardaydan qur-aanka dhamayn. ardayda tusaalaha kale qur-aanka aan dhamayn oo kale nidaamka loo degsa waxa weeyaan ardayga markuu hingaada laga dhiso waxna qoro waxna akhriyo si wanaagsan wax u qoro waxna u akhriyo in qur-aanka loo bilaabo. nidaamkan waa nidaamkii macruufka ah wax lagu soo dhigan jiray oo ardayga waxa weeyaan markuu waxna qoro waxna akhriyo si wanaagsan u qoro
baa berigii hore qur-aanka loo bilaabi jiray taana waxay keeni jirta ardayga inuu markiiba dhaqaaqo oo macalinka wuxuu uga baahan yahay iska koobnaadaan intaa marka laga yimaado nidaamka ardaydan qur-aan ku baran waxa weeyaan in qur-aanka la baro lafdan oo macna lafdiga oo ah lafdigii la akhrinayay oo tilaawadii iyo macni